waxaa maanta ka furmay hoolka shirarka dowladda hoose degmada Og kulan ballaaran oo lagaga hadlayo horumarinta degmadaasi Og kulankan oo soo qaban qaabiyay maamulka dowladda hoose degmada Og ayaa waxaa ka qayb qaadanaya cuqaasha waxgaradka culimada diinta aqoon-yahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi Og kulankan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa waxa ugu horreynba ka hadlay gudoomiyaha degmada Og Xasan Saciid Saad Xasan Bariise iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaanle Axmed Daahir kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay wax wada qabsiga iyo horumarinta degmadaasi Og marka hore shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa shir watashi ah oo laga wada tashanayo arrimaha nabadgelyada ee deegaanka iyo horumarka degmada waana degmo aad dadkeedu ugu wanaagsan yahay halkan waxaan ugu talagalay inaan kaga wada tashano sidii aan wax u wada qabsan lahayn ee degmadeena aan u horumarin lahayn waxa dhamaaday imika waxay ku jirnaa bishii ugu dambeysay sanadkii 2014 degmada Og waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu qiimaha iyo qaayaha badan gobolka Saraar ay ka mid tahay sababtoo ah waxa degan dad mixed ah waa degmooyin maanta ugu nabadgelyo wanaagsan gobolka waxaan aad u mahadcelinayaa sida qiimaha leh ee isku soo abaabushay ee adoonsana degmooyinka horumarsan sidoo kale cuqaasha waxgaradka iyo culimada kala duwan ee gobolka Saraar ayaa iyaguna dhamaantoodba hoosta ka xariiqay in maamulka dowladda hoose degmada Og haatan ka jira uu yahay kii ugu waxqabadka badnaa ee soo mara degmadaasi Og waxayna tilmaameen in wax kasta oo looga baahdo dhanka bulshada ay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin maamulka degmada Og waxaan soo jeedinayaa qiimaha aad u qaaliya maamulka Og annagu haddaan odayaasha magaalada nahay wixii ay looga baahdaan ama noo soo bandhigaan ayaan ku garab taaganahay oo aan anagu wax kala qabanaynaa maamulka dowladda hoose ee degmada Og waxaan ku salaamayaa waxqabadka ballaaran ee isbeddelka leh ee ay magaalada ka muujiyeen kana qabteen dhammaan magaaladana maqsuud u tahay waxaan noo qabsoomay haddaan wax ka taabtaamano gurigan oo ah gurigii dadweynaha maxaan ku raadin gurigii dowladda hoose oo noo seesan garoonkii ciidda maxaan ku raadin waxyaabo fara badan baa noo qabsoomay wax badanna way noo dhiman yihiin iskuulada waa naloo dhisay qaarna waa naga dhiman yahay annaguna aan maxaan ku raadin wax qabadka aan qabsano oo aan gacmaha isu geyno oo aan nabadda iyo wanaagga iyo maxaan ku raadin magaalanimadooda soo saaro kulankan oo la filayo inuu socdo 4 cisho ee soo socota ayaa waxa uu yahay mid inta uu socdo lagu falanqayn doono sida ugu haboon ee maamulka degmada Og iyo bulshada ku dhaqan deegaankaasi ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta degmadaasi Og Jaamac Boodacade TV qaranka Soomaaliland aynaba